عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي أصحابتك كحران channelكم معاني channel ميلو بدنيا دافيه إذا كذا سكنتين ومن معاني أو هذا نعاود فيديو كلا إني وضو مدة أصحاب بدن وأسور هاديين وإلهن من أنت كدعدي وأسكدرين كرتين مشغول ومبالغ مكان هاي هدي وقتي أنا هايو وإذن سوقي لها إلهينا وقتها hanoo barakeeyo qof walbana meesha uu joogo waxaan leeyahay allaha idinku amaansado caawa halkan waxaa usoo galay barnaamij in aan ka hadlo ah barnaamijkaas oo muddo badan waa fiiriyey waana jeclaa waqti ka horeeya in aan ka hadlo laakiin waqti walbe iyo wax walba munaasab ayuu leeyahay iyo xilli uu ilaahay ugu talagalo inuu qofka hadlo marka waxaan u maleynayaa caawa ayuu ilaahay kasbay in aan arrintaas ka hadlo mowduuca videogana waxaa waaye fariin ku socoto siyaasiyiinta soomaalida meel walba ee caalamka ka joogaan iyo ururada soomaalida siiba soomaaliya oo kale ma ka hadlayo laakiin ameerika australia iyo yurub soomaalida ururada ku shaqeysto iyo siyaasiyiinta jagooyinka noogu fadhiyo magac soomaaliyeed hadday golo deegaan ahaan lahayd iyo haddii golo baarlamaan ahaan lahayd iyo haddii golo kasii sarreeyaba ay ahaan lahayd ayaan rabaa hal iyo laba inaan dhaho midda kaleeto marka ugu dambeysana waxaan hal iyo laba leeyahay shacabka aan aniga ka kow ahay marka ugu horeyso su-aasha isweydiinta mudan maxay tahay qofkan siyaasiga ah yuu u baahan yahay muxuuse ku koraa kursiga uu doonayo waa wada ognahay waxa uu u baahan yahay dad soomaaliyeed inuu caawiyo wuxuu ku koraa magac soomaaliyeed inuu annagana matalayo inuu baahideenna uu halkaasi horgeenayo in uu waxa aan diidno soomaali haddaan nahay uu asagii dhihi karo war waxaan dadka aniga meeshaan i keenay ani meeshaan iskama imaanin alle dad baa i keensadaye waxaan uma cuntamaayo waan ognahay hal cod oo asagaa waxba ma taraayo laakiin waxa uu tarayaa dadnimadaadii iyo kalsooni dadkii shalay ku soo doortay heshiiskii aad la soo gashay ahayd waa idiin hadlayaa ayaa ilaahay kula ogaanayaa eedaasaad iska ridaysaa laakiin taasi maysan dhicin in badan aan wada ognahay qurbaha dadka ugu dayacan waxaa waaye oo dowlad u hadasho iyo dad u hadla lahayn waxaa waaye dadkeena soomaalida runta markii laga hadlo sababtoo ah dadkii aan kuraasta aan soomaali ahaan ugu ololeyno aan dhahna hebel ha loogu shubo codka meesha jagada markaan geysana dee hadday golo deegaan ahaan lahayd iyo haddii golo kasii sarreeyaba uu ahaan lahaa hebelow wuxuu fiirsadaa xilkaas iyo labadiisaas shilin laakiin taas maanan ahayn midii loo doortay hebel walba marka saas markuu sameeyey oo la arkay in uusan dadkii soomaaliyeed shalay kursigan keensaday in uusan u hadlaynin maxaa imaatay marba marka ka dambeyso waxyaalo kasii daran in ay reer galbeedkii ku dhaqmaayaan sida hadda socoto wadamo badanna ee ka dhacday ee ah
qowmuluudkii in la yiri iskooladii ayaa lagu dhigayaa, in la yiri waa looga sheekeynayaa ilmaha intay yar yihiin. sababtoo ah anaga Soomaali haddaan nahay dadka wadan walba ee qurbaha dadka ugu badan qaxootiga ama kaalinta labaad ama kaalinta saddexaad soo galaan nahay, laakiin dad muuqdo ma haysano, mana nihin runta markaan ka hadalno. codkeena yaan la tixgelinin, ama annaga aan badnaano ama yaanan badnaanin, yaan naloo tixgelinin. kan aan shalay meesha geysanna codkiisa yaan la tixgelinin. laakiin muhiimadda waxaa waaye in aan hadalno oo aan ka dhiidhinno, aan dhahno annaga waxaasna ma anfaco. sababtoo ah reer galbeedka runta markii laga hadlo annagana dan bay nagu qabaan, ayagana dan baan ku qabnaa, waan isku baahannahay. keliya ma ahan in aan magaalgelyada ayna siiyeen keliya, wayna siiyeen, wayna soo dhaweeyeen, haa waa uga mahadnaqeynaa, laakiin ma ahan saa rabaa kaa yeelaa. sharci walbe waa inaa u hogaansanaatid oo qasab oo abaali ajar ahayn ma ahan. waa in aan annaga nahay dad xuquuqdooda iyo waxay xaq u leeyihiin iyo waxaysan xaq u lahayn kala yaqaano inaan ahaano, oo aan ka dhiidhinna arrin walbaba yaa xitaa naloo tixgelinin. laakiin muhiimadda dad arrimahaasi ka dhiidhiyey waa inaan noqonnaa, taas maysan dhicin. ururada ayaa soo haray iyagana. ururada runta markii laga hadlaayo qof walba ururkan wuxuu u furtay in uu xoogaa shilimaad uu ka helo. okay, walaalka ku jiro urur ama furtay urur ee ku samaystay asagana Soomaali inuu wax u qabanayo, laakiin faraq ku tiris dadka wax qabto wadan walba Yurub ama America ama Australia waa la yaqaanaa Soomaalida ururada leh iyo Soomaalida siyaasadda ku jiro, dadka say wax ugu qabteen iyo inta wax u qabatay iyo inta kale indhahana sharooto nagagama dhegana, waan ognahay inteena badan. laakiin inta wax qabatay iyo inta aan wax qabanin ayaa badan. maadaama ay taasi badan tahay, maxaan u baahannahay in aan uga hortagno taas. dadka shacabka ee dadka dooranayo inta ugu dambaysa videoga ayaan uga hadlayaa. walwalaalow, maadaama aad tiri dad baan wax u tarayaa, maxaa kuu diiday adduunkaaga iyo aakhiradaadaba in aad ugu shaqaysatid dadka walaalahaya ee u baahan caawinaada gaarka ah, ee u baahan ee waayeelada ah, in aad waxyaalo badan aad ajar adduun iyo aakhirana uga helaysid, magacii dee aad raadinaysayna aad uga sii helaysid, oo ah inaad jimicsiyo kale, dabaalo kale, fasaxiyo kale, waxyaalahaas oo dhan in aad ku geysid sida hooyooyinka, dhalinyarta, dadka baahida gaarkaa qaba. waxaasoo dhan maxaa kuu diiday in aad uga faa'iidaysid? xoolahan laguu soo dhiibay ma ahan keliya inaa adiga keligaa cuntid, waa in aad dadkaana siisid. aakhiro xoolo kuma raacaayo, wixii adduunka aa ku shaqaysatay ayaa aakhiro qof walba la tegaayo. marka wax walba waan ognahay, dadka siyaasiyiinta aan dooranayo, idinkana ma ahan inaad lacagtaas iyo jagadaas aad fiirsatiin. wax walba waa in aad ka hadashiin. codkiina haa waa nagala badan yahay, laakiin waxaa muhiim noo ah annaga in aad tihiin dad noo hadlay oo aan ku tashan karno, oo diintoodii iyo dadkoogiiba difaacayo. hadda Finland warar badan ayaa ku jira, qofna ma rabi in aan ku xadgudbo. dad badan oo siyaasiyiinta ku jiro ayaa la hadal hayaa, la leeyahay arrimihii qoomaluudka way ansixiyeen, way kaneeyeen. dadkaasna waa in ay iyaga ka soo hadlaan arrintaasi, ay berri iska soo dhigaan, berrina ay sameeyaan in aysan raali ka ahayn arrintaani. waxaa soo haray
hadalka inaan badiyo ma rabin oo inaan soo koobaa rabaa laakiin hadalku wuu badanayaa iska dulqaata ururadii iyo siyaasiyiinta halkaasaan uga baxaya yaa soo haray waxaa soo haray shacabkii aniga aan ugu horeeyo shacabka aniga aan ugu horeyno shacabow runta markaan ka hadalno dadkan annagaa heerkaas gaarsiinay qofkii intii ballanqaad intuu noo ballan qaado arrimo sameyn waayo 4 sano kadib waa soo laabanay baahidooda ma dhammaato markay dadkii soo laabtaan ee dhahan kaale dig xilliga codeyntaa la arkaa dadka golaha deegaanada iyo isku soo sharaxo inta kale lama arko qaar la arkana way jiraan laakiin intaan la arkinaa badan markaasoo kaleeto haddii annagana aan yasi lahayn oo aan tusi lahayn codkeena inay muhiim u tahay dadkaani xoogaa inay noo hadlaan ayay u badnaan lahayd laakiin annaga laftirkeena soomaalideena hebelaa wuu ixigaa qabiil iyo maaragtay saaxiib iyo waxyaalahaas aan ku meeraysana okay qabiil way fiican tahay laakiin in adeerkaa haddii gaaladii